dunida basaasnimada waa mid ku dhisan qarsoodi taxaddi dheeri ah maadaama qofka la doonayo inuu soo gudbiyo xogo muhiim ah iyadoo aan la ogaanin ama aan laga shakinin. Waa duni si u madow oo wax badan laga ogeyn kuna dhisan qarsoodi khatar qaadasho heerkii ugu sarreeyay. Basaasiinta waxa la yiraahdo waxay isku qariyaan bannaan muuqda la yaab ayay malaha kula tahay sida qof isku qarin karo bannaan muuqda. Waxaad moogtahay in basaasiinta waliba kuwa dibadaha loo dirayo loo tababaro si xitaa qofku uu qaadan karo shakhsiyad kale ama uu iskaga dhigi karo qof uusan ahayn. Sheekooyinka la yaab kale ee qarniga 20aad laga diiwaan galiyay qaaradda Koonfurta Aasiya waxaa ka mid ah qisada basaasi Hindi ah oo si madax uu kula weynaanayo u dhexgalay dal kale oo cadow ah ilaa uu gaaro inuu galo goobo muhiim ah si uu dalkiisa ugu soo gudbiyo xog aan lagu heli karin milyuumaan dollar oo dalkiisa si weyn u caawiyay xilli uu dalkiisa dagaal kula jiray dalka loo diray. Sheekada basaaskan Hindiga kaliya waxay rug noqon kartaa filim si kala dadku uma rumaysanayaan, laakiin waa dhacdo dhab ah oo ay ka buuxaan qisooyin sirdoon oo qaarkood ilaa maanta khiyaali la ah dad badan. Ilaa waqtigan la joogo sheekadiisa iyo howlihii uu qabtay waa sir aan weli sirdoonka dadweynaha u furin. Ku soo dhawaada qisada mid ka mid ah basaasiintii ugu wanaagsanaa ee soo maray Hindiya ilaa madaxda dalkaasi ay ula baxaan magacyo muujinaya waxqabadkiisa iyo sida ugu soo dhalalay hawshii loo diray. Ravindra Kaushik waxa uu sanadkii 1952 ku dhashay magaalada Shri Ganganagar ee gobolka Rajasthan ee waqooyiga Hindiya. Magaalada Shri Ganganagar waxay ku taallaa cirifka waqooyi ee xuduudda caalamiga ah ee Hindiya iyo Pakistan. Aabihii J.M. Kaushik waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka cirka ee Hindiya. Waxbarashadiisa waxa uu ku dhammaystay kuleejka SD Bihani College ee magaalada Shri Ganganagar ee gobolka Rajasthan isaga oo qaatay shahaadada ganacsiga ama BCom. Intii uu kuleejka dhiganayay waxa uu si weyn ugu dhex muuqday jilada riwaayadaha iyo doodaha isagoo ku wanaagsanaa canjilada ama dhaajinta. Waxaa la sheegay inuu caawin jiray sirdoonka Hindiya maadaama magaaladiisa ay ku badnaayeen dadka ka ganacsada daroogada. Halkaas ayuu ka helay xiriirkiisa hay'adda sirdoonka dibadda ee RAW. Waxaa halkaas uga bilowday safarkiisa sirdoonnimo oo geeyay wadnaha hay'adaha amniga Pakistan oo uu si fiican u dhex galay ilaa ra'iisul wasaarihii dalkiisa Indira Gandhi ay ku naanaysto shabeelkii madooba Black Tiger. Hindiya waxay qani ku tahay shabeelkaas ayaa aad ugu badan shabeelka madow waana sababta lagu magacaabo qofka halyeeyga marka uu yahay shabeel maadaama dadka Hindida ay shabeelka u arkaan inuu yahay halka libaaxa uu joogo kale. In Ravindra loo diro dal kale oo uusan aqoon isagoo weliba dadkaas muuqaal mooyay aan wax kale la wadaagin waxay ahayd khamaar halis ah oo ku dhammaan karay fashil iyo ceeb. Si ay taas uga baaqsatay hay'adda sirdoonka Hindiya ayaa muddo 2 sano ah waxay tababar qarsoodi uga furtay magaalada New Delhi si loogu carbiyo hawsha halista ah loo dirayo. Intuu tababarka New Delhi uga socday waxa aabihiisa qoyska u sheegay inuu shaqo ka helay magaalada New Delhi. Waa mid ka mid ah xeeladaha ay tababaha isticmaalaan sirdoonadu in qofka uusan sheegin shaqada uu qabto. Marka qofku sirdoon loo qaato waxyaalaha la baro waxa ka mid ah inuu u noolaado qaab kale inuu si kale iska dhigo in uusan sheegin shaqada uu qabto maxaa yeelay shaqada uu qabto waa qarsoodi haddii la ogaadana way adag tahay in aad xog soo heshid oo dadku waa iska ilaalinayaan. haddii la iska ilaaliyana sirdoonnimada waa fashil oo halkaas waxaa ka imaanaysa inaad waxba keeni karin oo aad tahay nin bannaanka yaala oo cid kasta ay taqaano waana la iska qarinaya waa la iska ilaalinaya. Marka taasi isoo dhicin waxa uu sheegay qoyskiisa inuu magaalada New Delhi ka helay shaqo halkaasna uu ku shaqeeyo. Tababarka la siiyay waxaa ka mid ah inuu u noolaado sida qof muslim ah oo kale macnaha waxaa la baray sida qof muslim ah inuu u dhaqmo. Ujeedka waa dhagridda hay'adaha amniga Pakistan. Magaciisa oo ahaa mid Hindu ah ama qof haysta diinta Hinduuga ayaa loo bedelay mid Muslim waliba magacyada ay la baxaan dadka Pakistaaniyiinta ah. Magacaas waa Nabi Ahmed Shakir. Waxaa kale oo lagu sameeyay si loo bedelo oo shaki uusan u imaan gudniinka ragga muslimiinta lagu sameeyo. Intaas waxaa dheer in la baray afka Urduga oo Pakistan looga hadlo iyo waliba juqraafiga dhulka Pakistan iyo macluumaad la xiriira Pakistan. Dabcan Hindiya iyo Pakistan badanaa waa isku luqad ama isku agdhow yihiin waana mid fududaynaysa inuu si fudud u dhex galo. Waxa uu si dheeraa isaga in deegaanada uu ka yimid oo ku dhagan gobolka Punjab ee waqooyiga Hindiya looga hadlo luqadda Punjabi oo Pakistaaniyiin badan ay ku hadlaan. Markii uu dhammaystay tababarkii lagu siinayay inuu noqdo sirdoon qarsan oo dalkiisa u soo basaasay Pakistan ayaa sanadkii 1975 loo diray Pakistan isagoo da'diisu ahayd 23 jir. Habeen ka mid ah sanadkii 1975 ayaa xuduudda dhanka Pakistan loo dhaafiyay si qarsoodi ah si loo tirtiro raadkiisii hore. Hay'adda sirdoonka Hindiya ayaa gabi ahaan baabi'isay wixii warqadaha ee uu lahaa haddii aan lahayn kuwa dhalasho waxbarasho ama kuwa kale.
waxa uu tegay Bakistaan. Durba wuxuu ahaa muwaadin Bakistaani ah kana soo jeeda magaalada Islaamabad ee caasimadda dalkaas. waxaa loo sameeyey warqado dhalasho waxbarasho oo been abuur ah oo muujinaysa shahaado dugsi sare. waxa uu isku dayey inuu marka hore ciidanka qorto, laakiin qaar ka mid ah saraakiisha sirdoonka Hindiya ayaa diiday fikirkaas, iyaga oo sheegay inuusan ka gudbi karin hubinta oo uu fashilmayo. sidaas darteed waxa uu u wareegay dhanka jaamacadaha, isagoo aqbalaad ka helay jaamacadda Karaaji oo uu ka dhameeyey shahaadada sharciyada LLB iyo tan xisaabinta. markii uu dhammaystay jaamacadda waxa uu ku biiray ciidanka Bakistaan, isagoo ka bilaabay sarkaal darajo leh maadaama uu haysto shahaado jaamacadeed. markii dambena wuxuu u dalaacay darajada gaashaanle ama mijir. waxaa jirta warbixino kale oo tilmaamaysa inuusan ciidanka toos ugu biirin, laakiin uu la shaqaynayay ciidanka Bakistaan ka shaqaal rayid ahaan isaga oo ah xisaabiye. ha yeeshee taasi ma xoogana marka la eego saamaynta xogta uu soo gudbinayay Hindiya. waxaase la leeyahay waxa uu ahaa xisaabiye ciidanka Bakistaan u shaqeeya. waxa uu guursaday gabar Bakistaaniyad ah oo lagu magacaabo Amaanad oo ay ahayd gabar uu dhalay harqaanle ciidanka u shaqaynayay. gabadhaas waxay u dhashay wiil geeriyooday sanadka 2013. laga soo bilaabo sanadihii 1979 ilaa 1983 Kaushik basaaskii Hindiga ah waxa uu ka tirsanaa ciidanka Bakistaan. intaasba wuxuu xogo muhiim ah u soo gudbinayay sirdoonka Hindiya, xogahaas oo si weyn u caawiyey ciidanka Hindiya. sanadkii 1977 Bakistaan waxaa ka dhacay afgambi uu xukunka kula wareegay Ziyaa ul Haq. sidaas darteed Hindiya walwal badan ayuu ku hayay afgambigaas, waxayna ka baqayeen inuu weerar uu soo qaado hogaamiyaha cusub. waqtigaas Ravindra waxa uu soo gudbinayay siro la xiriira la socodkiisa abaabulada ciidanka Bakistaan iyo qorshayaashooda. xogaha uu soo gudbinayay waxaa ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyada unugyada ciidanka Bakistaan iyo goobaha la geenayo saraakiisha muhiimka ah. waxaa kale uu soo gudbinayay tiraanada sida saadka iyo gaabiyada ciidan ee isaga kala goosha Bakistaan iyo qaabka ciidanka loo kala dejinayo. Kaushik ayaa xogta waxa uu ku soo gudbinayay isgaarsiinta boostada, isagoo qoraal ku soo qorayay qad aan la arki karin, macnaha qof warqadda aragtay aysan akhri karin, kadibna ku hagaajinayay ciwaano ku yaala Kuwait iyo Dubai. xogaha ayaa aad u daahi jiray, waxayna qaadan jireen ugu yaraan bil ama ka badan, maadaama lagu darayay hab aan dhaqso la heli karin. Kaushik ayaa dalkiisa xog sidaas u soo gudbinayay ilaa 1983. bishii Sebtembar sanadkii 1983 hay-adda sirdoonka dibadda Hindiya RAW ayaa howlfulyo hoose u soo dirtay. Niyaad Masiix ayuu ahaa sarkaalka loo diray si uu la kulmo Kaushik. hay-adda sirdoonka Bakistaan ISI qaybta ka hortagga basaasiinta ayaa qabatay Niyaad Masiix, waxayna taasi keentay inuu sii fashiliyo Ravindra Kaushik. sirdoonka Bakistaan ayaa qabtay Kaushik oo 2 sano ku jir dilayay goobo lagu baaro basaasiinta oo ku taala Sialkot ee gobolka Punjab. waxaa lagu xukumay dil toogasho ah sanadkii 1985. hay-adda maxkamadda sare ayaa mar dambe ku xukuntay xabsi daa'in. xabsiyo kala duwan Bakistaan ayaa lagu hayay muddo 16 sano ah. waxaa lagu kala hayay xabsiyadan Sialkot, Kodlakbat iyo Mianwali. inta uu xirnaa waxa uu suuro gashay inuu si qarsoodi ah warqado ugu soo diro qoyskiisa, isagoo ka cabanayay caafimaadkiisa oo liitay iyo darxumada uu la kulmay. mid ka mid ah warqadaha ayuu ku qoray qoraal u dhignaa sidani ma sida ay la kulmaanba dadka naftooda u hura dal weyn sida Hindiya. sanadkii 2001 ayuu xabsiga dhexe ee Mianwali ugu dhintay cudurka qaaxada ama TB iyo wadne xanuun. qoyska Ravindra Kaushik ayaa sheegay in dowladda Hindiya ay diiday inay aqoonsato ama ay gacan u fidiso intuu xabsiga ku jiray iyo markii uu dhintayba. filim Hindi ah oo ay samaysay shirkadda aflaanta ee Bollywood laguna magacaabo Ekta Tiger Shabal ayaa jiri jiray. ayay qoyska Ravindra Kaushik waxay sheegeen inuu isaga ku saabsanaa qisadiisa, waxayna codsadeen in lagu xuso qoys ahaan. filimka waxaa jilaaga koowaad ka ahaa Salmaan Khan, wuxuuna ka sheekeynayay qisada basaas ka tirsan sirdoonka dibadda ee Hindiya ama RAW. isku dubridaha filimka Kabir Khan ayaa beeniyey in sheekada filimka ay ku saabsan tahay Ravindra Kaushik. filim kale oo Hindi ah oo soo baxay 2019 laguna magacaabo Romeo Akbar Walter, kaas oo uu qoray iskuna dubriday Robbie Grawal, ayaa ku salaysnaa howlihii Ravindra Kaushik uu ka hayay Bakistaan. filimka waxaa Ravindra ku matalayay jilaaga John Abraham, inkastoo magaca filimka uu ku matalayay oo ahaa Raxmatullah Khan.